markaana waxaan u yeerayaa Xaaji Macow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعدي waxaan u mahadcelinaynaa ummadan Soomaaliyeed ee ka kala timid gobolada iyo degmooyinka waqtigoodina noo soo huray waxaan leenahay imaashada iyo waqtiga noo soo horteen waa ku mahadsantiin waxaan kale oo mahadcelinaynaa dhalinyaradii gabdhihii iyo wiilashii xafladan soo abaabulay ka soo shaqeeyay suurta geliyay intaana umada inay isugu timaad meesha ayagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin Soomaalida waxay tiraahdaa xaq hadii madaxa laga duugo majahu nuuxiya hadii majaha laga duuganay madaxu nuuxiya walaalayaal sida aad wada ogtihiin 22 sano ee ummadan Soomaaliyeed ay soo martay Soomaalida dibku way wada sheeganaysaa laakiin dibka waa loo kala badnay dadkii duunyadooda haweenkooda xoolahooda ilmahooda 22 sano lagu kor dagaalamay haddaan Ilaahay ka cabsado anigu waxaan leeyahay mudnaan gooni ay leeyihiin marka waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed inay isu garaawdo wixii dhibaato ah oo jiro iyo cidii dhibaato tabanaysa macnaha dhibaatadooda laga hadlo xaqana in Ilaahay la raaco oo aan maaragtay sheegan qofna aan waxba loo geysan marka walaalayaal waa ku mahadsantiin mar kale inta ka soo qaybgalka iyo sida wanaagsan aad u timaadeen kulankan aan isugu nimidna waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa wax khayr qabo aan ummadana wax u dhimin annana wax noo dhimin inay ka soo baxaan sida laga dhawaajiyay malaaqa xamar iyo xamardaye asagana maaragtay ii sheegan mudnaantiisa uu leeyahay taariikhdiisa iyo dadka uu matalo wax qabadkooda iyo wixii soo jireenka ahaayna kulay waa laga dambeyn doonaa waxaan u dhaafayaa intaas odayaasha iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo culimada iga dambeyn doonto waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wali waxaan ku jirnaa xafladii loogu talagalay taageerida malaaqa xamar iyo xamardaya markaana waxaan u yeerayaa Maxamed Sayid Cumar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. مركب وهريسو وعن هذا عليها أنت سواء باب الشيء جوجل شام في الصي يعني محدقار وعليه. مركز كذب مناسبة دان الجديدة يمعنيه وحواية سيدنا الله شاقي تغييردا ملاق علي ملاق شوري oo duub kamid ah duubabka deegaanka xamar ilaa xaradheer anuu hadda xamar iyo xamarday aan maqlay wuxuu kamid yahay duubabka dadkaas deega dhulkaas imaama jira ugaasa jira malaaq waa ilaa xaradheer uu malaaq u yahay xamar iyo xamarday uma marka duub jira oo soo jireen ah oo ilaa shanfac duub ahay waaya anu adoogiisa naqin malaaq shawri calina waa aqaan waa dad taariikh leh waa dad dhaqanka dadka deegaankaas kamid ah marka waxaan u heystaa inuu duub yahay mugga xamar iyo xamardiyaan la dheer dhulka waa balaariya xal la fogeeyo duubka
وانا أهم بليها ملاق علي سفعنا نوقان رأييسا يفكرديسا يوحى كصباحنا ودقيستا والله سعدا ونن أهلكم وحي حقه وحي يعني قلداد جرنا الشيقة فكر كيسا وحو آمنسي أنا نشيقوا ما كان سوق هذا أولا الدستور كان يسوي سمرون كتاجين سياسيين دوب dad badan aqoonyahan dad ka hadlay qaldaada jireen xal sax madaxweynaha u dambeeyay wixii qaldaada waa saxaynahay marka waxaan rajaynaynaa dadka la soo xulayo ergooyinka anu aqoonyahan ma socdayaal dhaqan iyo dad siyaasiyiin dad yaani aqoon leh dhammaan waa isku wada jiraan waxaan leenahay wixii dadka u qaadmo dastuur wax sahlan ma ahane u qaada waxaan u qaadna ka saara intaas aan u baaqaynaa wakii waxaan ku soo gabagabayha waxaan u hambalyahay malaaqa ودوب صوماليات ديجان كاسون ودوب وياه وأنا مع سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يوم هي محمد سيد عمر مركان وحن ويريا دكتور حسين علي نور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا لي الارتياد بدون ما هتسنتين أنا فيلني هل كنا ناخذ بأيو جس وحنا كقاب قلياشة سكيم هل كان مركا بدون ما هتسنتين الشرف قال شرفتين يعني سوء استاجسين هل كان إن لا وكيل waxaan filayaa ujeedadii iyo sababihii halkan loo yimid waxa ka hadlay odayaasha iyo cuqalada iyo akhayaarta halkan isugu timid waxaan rabaa kaliya hal wax inaan ku ziyaadiyo waxa jira qodobo muhiim ah oo hadda kor aan aad iyo aad aniga aan uga qayliyay iyo dadkii la mid ah oo ay kamid ahayd dastuurkan la leeyahay xamal lama kala laha laakiin inta kale waa la kala leeyahay waxaan filayaa meeshii aan u soconno waa midnimo Soomaaliyeed kuma iman karto cadaalad darro iyo dulmi kuma iman karto midnimada Soomaaliyeed waxay ku iman kartaa in cadaalad jirto haddiina cadaalad jirin طبعا ma jirayso midnimo Soomaaliyeed taas marka waxay noo sheegaysaa xamar lama kala le inta kale waa la kala leeyahay markii la leeyahay waxayna tusaysaa in cadaalad darro ay jirto waxayna tusaysaa in midnimo Soomaaliyeed aan loo soconin waxaan codsanaynaa mar labaad in laga saaro dastuurka qodobada noocaas ah markii waa xaq darro dadii xaq darro ku tahay hadii la yiraahdo xamar laga qaado dadka lahaa ee cid kale hal la siiyo lagu casuumo laakiin inta kale dadka la iswada u lahaadaan hadii la yiraahdo waxaan filayaa wax aqli gal ama aha macquul yani aqliga bini'aadamka xataa macquulku ma aha wali waxaan ku adkaysanayaa aniga aqligayga taasi inay wali tahay meel ka dhac weyn ku tahay dadka reer Banaadirland oo dhan reer Banaadirland marka waxaan ka wada xaradheere ilaa Kismaayo ilaa Braawe reer Banaadirland dalkooda ama dhulkooda meel kamid ah